أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى: آمين. كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka bilaabaynaa kitaabka saxiix albukhaari. alimaam albukhaari kitaabka wuxuu ku bilaabay kitaab la yidhaahdo kitaab badi lwaxy. kitaabkiisa kutubta marka uu tiriyey kadib wuxuu ku khatimay kitaab atawxiid. culamada waxay yidhaahdaan imaam albukhaari xikmadda uu ka lahaa arrintaas waxay ahayd qofkii raba in uu ilaahay subxaanahu watacaala ku oofsado tawxiidka: man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna, in uu waxyiga qabsado. ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa iyo oo ummaddan uu naxariistay waxay keentay inuu ilaahay subxaanahu watacaala waxyigan oo u xifdiyo. marka waxyigan asagana soo gaaray qofkii qabsada waxyiga oo kulansaday kitaabka iyo sunnada iyo wixii laga fahmay, qofkii qabsada ilaahay subxaanahu watacaala khaatimadiisa u hagaajina. laakiin ninkii waxyiga ka leexdo oo caqligiisa iska raaca, qofka khaatimadiisa xumaan ayay u dambeynaysaa. marka alimaam albukhaari kitaabkiisa wuxuu ku bilowday kitaabkan inuu noo caddeeyo waxyigan isaga ah sida uu ku bilowday, habka uu nagu soo gaaray. qaala shaykhu alimaam alxaafid abu cabdillaahi moxamed bin ismaaciil bin ibraahim bin almugiira albukhaariyu raximahu allahu tacaala: aamiin. wuxuu yidhi: kayfa kaana bad'u lwaxyi ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. kitaabka markuu sheegay kadib baabka ugu horeeya wuxuu yidhi: kayfa kaana, siduu buu ahaa bad'u lwaxyi, waxyiga bilaabashadiisa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo lagu soo waxyoodo, habka uu ku bilowday siduu ahaa. su-aashaas ka jawaabideeda wuxuu keenay marka dhowr axaadiid. intuusan axaadiidta gelin imaam bukhaari wuxuu yidhi: wa qowlu llahi jala dikruh, aayad ayuu noo sheegay. aayaddaas oo tilmaamayso waxyigaana nabiga caleyhi salaatu wasalaam loo soo waxyooday in uu la mid yahay waxyigii ilaahay subxaanahu watacaala uu soo waxyoon jiray nebiyadii hore. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala: innaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin waannabiyiina min bacdih. aayaddan waxay ku timid ahlulkitaabka oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam weydiistay inuu la yimaado mucjizooyin iyo waxyaabo oo maaragtay ay rabeen: yas'aluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaban min assamaa. marka waa maaragtay madax adeeg ayay ka keeneen waxaas. laakiin maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu caddaynaa waxyiga nabiga caleyhi salaatu wasalaam soo gaaray inuu ahaa waxyigii nebiyullaahi nuux iyo nebiyadii ka dambeeyey oo dhan waxyigii soo gaaray oo kale inuu la mid yahay. marka nebiyullaahi nuux waxaa loo doortay oo maaragtay aan la sheegin nebiyullaahi aadam asagoo nebi ah, nebiyullaahi aadam oo rasuul ah, oo laakiin rasuulnimadiisa waxay ahayd duriyadiisa ayaa loo diray. laakiin nebiyullaahi nuux waxaa loo doortay, culamada maaragtay xikmooyin badan ayay ka sheegaan. waxaa ka mid ah nebiyullaahi nuux calayhi salaam wuxuu ahaa
awalu nabiyin min anbiyaa'i shariica, nebi waxyi loo soo dhiibo oo maaragtay shareeco loo soo dhiibo kii ugu horreeyey ayuu ahaa. haddana wuxuu ahaa awalu nadiirin cala shirk, qowmkiisa markay leexdeen nebi lasoo diro qowmkiisa saxa oo ugu yeera xaqa, nebiga ugu horreeyey ayuu ahaa. tan kale wuxuu ahaa wa awalu man cudiba ummatuhu, nebiga ugu horreeyey oo ummaddiisa la cadaabo markii dacwadiisa ay diideen ayuu ahaa. marka taa waa digniin oo maaragtay ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi nuux markuu sheegayo waa in maaragtay lagu cibr qaataa oo maaragtay laga digtoonaada. marka ilaahay subxaana watacaala fakhasahu bidikri tahdiidan liqowmi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam, waa iclaaman iyagoo la ogeysiinayo in iyaga la ciqaabi doono haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay khilaafaan. marka shaahidka wuxuu ahaa maaragtay nabiyullaahi nuux calayhi salaam waxyiga soo gaaray iyo nebiyadii asaga ka dambeeyey oo dhan, waxyigaas iyo waxyiga nebiga calayhi salaatu wasalaam la mid ah waa waxyigooda mid ah. qul maa kuntu bidcan min arusul, marka nebiga calayhi salatu slam ma ahayn nebi loo soo waxyoodo nebiga ugu horreeyey ma ahayn, waa waddadii nebiyadu ayuu haaya calayhi salaatu wassalaam. marka alimaam bukhaari markuu arrintaa noo sheegay wuxuu arooriyey marka uu sheegay xadiidka ugu horreeyey oo ka mid ah maaragtay axaadiidta nebiga calayhi salaatu wassalaam axaadiistiis ah. marka intaan guda gelin axaadiistii waxyaabihii waxaan tilmaamaynaa waxyiga nebiga calayhi salaatu wassalaam loo soo waxyooday waa 3 nooc. waxyi matlu la yiraahdo oo la aqriyo oo ilaahay subxaana watacaala ummadda uu ku maaragtay tacabuday in maaragtay ay aqriyaan, ay maaragtay ku cibaadaystaan, waa qur-aankii. waxyiga koowaad waa waxyiga qur-aankan ilaahay subxaana watacaala ilaahay xaggiisa ka yimid oo nebiga loo soo waxyooday calayhi salaatu wassalaam, waa qeybta koowaad. qeybta labaad waa ilaahay subxaana watacaala waxyi uu usoo waxyoonaya nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam oo lagu magacaabo alaxaadiid alqudsiya. nebiga calayhi salaatu wassalaam markii axaadiistaas uu sheegayo wuxuu yidhaahdaa qaala allahu caza wajal yaa cibaadii inii xaramtu dulma mathalan. axaadiistaas oo waxyigaas oo nebiga calayhi salam loo soo waxyooday oo ilaahay xaggiisa uga yimid waxaa lagu magacaabaa alaxaadiid alqudsiya. nooca saddexaad waa alaxaadiid annabawiya, nebiga calayhi salaatu wassalaam waxyi loo soo waxyooday oo waxyigaas uu ku cabirayo aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa. 3 noocba maaragtay waxay ku kala duwan yihiin. waxay tahay waxyiga koowaad oo qur-aanka waa waxyi mucjiz ah oo ilaahay agtiisa ka yimid, alfaadeeda ilaahay agtiisa ka yimid oo nebiga calayhi salatu slam wax shaqo uu ku leeyahay ma laha, sidii loo soo gaarsiiyey ayuu usii gudbinaa. qul huwa allahu axad, marka nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tasarufi karo hadalkaa, waa inuu yidhaahdo qul huwa allahu axad, xataa qulkii ma xadfi karo, asagaa laleeyahy qul dheh, laakin maca dalika inuu yidhaahdo huwa allahu axad oo dadka u gaarsiiya ma yeeli karo, maxaa yeele waa qur-aan sidii asaga loo yiri ayuu u gudbinaa. marka lafdiga iyo macnaha kulli ilahay xaggiisa ayuu ka yimid, waana lafdi mucjiz ah oo ilaahay subxaana watacaala mucjizo nebiga ugu dhigay oo dad aan awoodin inay la yimaadaan asagoo kale. ama waxyiga labaad oo axaadiidta qudsiga waxa waaye waa waxyi ilaahay xaggiisa nebiga calayhi salatu slam ugu yimid. marka nebiga calayhi salatu slam markii macaanida ayaa loo soo waxyooday, lafdiga ayuu cabiraa nebiga calayhi salaatu wassalaam min cindihi. waxyi ayaa maaragtay loo soo waxyoonaya nebiga calayhi salaatu wassalaam, waxaa la leeyahay arrintaa iyada qoomkaaga gaarsii. arrintii marka ayuu nebiga calayhi salam alfaadiisa ayuu ku cabiraa marka maaragtay oo leeyahay ilaahay subxaana watacaala saas ayuu idin leeyahay, marka ilaahay ayuu u nisbayna. farqiga waxa waye qur-aanka iyo axaadiis alqudsiga waxay tahay labadaba ilahay agtiisa ka yimaadeen, laakiin qur-aanka lafdiga iyo macnaha ilahay xaggiisa ayuu ka yimid. farqiga labaad, qur-aanka waa mucjizo nebiga calayhi salaatu wassalaam mucjizo looga dhigay oo qof aan la imaan karin. qul low in ijtamaca yani insiga iyo jinniga o dhan haddii kulmaan qur-aanka inay isagoo la mid a inay la yimaadaan lama iman karaan. baynama axaadiis alqudsiga lagama dhigin wax mucjiza lagama dhigin,
tan kale wax maaragtay waa nebiga calayhi salatu slam alfaadiisa oo isaga ayaa cabiray oo ilaahay xaggiisa ayuu maarata macaanida ayaa loogu soo waxyooday, macaanida maaragtay lafdiga ayuu saa u gudbiyey. waa alfaad maaragtay waxay ilaahay xaggiisa ka yimid oo nebiga hadal oo ku gudbinayo. nooca saddexaad waa alaxaadiid alqudsiya, macaani ayaa nebiga calayhi salatu slam loo soo waxyoona, marka ayuu macaanidaas ayuu u tarjumaa, wuxuu u tarjumaa aqwaal ayuu ku tarjumaa, afcaal ayuu ku tarjumaa, waxyaabo hortiis lagu samaynayo maaragtay inay sax tahay in qalad tahay ayuu caddaynaa. waxaas oo dhan maaragtay waa waxyi ilaahay xaggiisa ka yimid. marka sunnadii oo ah maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo taqriiraadkiisa waa nooc min alwaxyi ka mid ah, nooc saddexdaas nooc mid ka mida waaye. marka maaragtay sidaa darteed suu maaragtay alimaam albukhaari u adkay arrinta sunnada inay tahay wax ilaahay xaggiisa ka yimid oo loo baahan yahay ninka muslimiinta dadka ninka muslimkaa inuu ku dhago oo maaragtay fiiro gooni uu siiyo oo ihtimaamo maaragtay sida qur-aanka ugu dhagaayo kale inuu maarata sunnada ugu dhago ayuu taas uu ku caddaynaa. marka xadiid ayuu noo soo gudbiyey. marka axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aqwaashiisa iyo afcaashiisa maaragtay kulli kitaabka ayay ka buuxaan. marka xadiidka koowaad oo alimaam albukhaari uu soo bila oo maarata oo noo soo dooray oo baabkan oo noogu sheegayo waa inama alacmaalu binniyaat. marka alimaam albukhaari sidaan soo sheegnay ma ahayn keliya nin muxaditha oo axaadiis iska aruuriyo oo dadka usii gudbiyey keliya ma ahayn, waa nin wuxuu axaadiistii markuu soo gudbiyna maarata soo aruuriyey oo isku tartiibiyey oo maaragtay ummadda si habkay uga faa'iidaysan lahayd usoo nidaamiyey, usoo maaragtay dooray maaragtay axaadiis saafi ah oo khaalis ah maaragtay. marka intaan guda gelin xadiidka sharaxiisa, xadiid walba waxaan aragnaa alimaam albukhaari marka uu soo gudbinayo in uu ku bilaabanayo waxa la yihahdo sanadka. xadaثna alxumaydi cabdullahi bn zubayr qala xadaثna sufyaan qala xadaثna yaxya bn saciid الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. marka imaam albukhaari axaadiidta uu noo soo gudbinayo ma dhihin keliya qaal nabiga calayhi wasalam saasuu yiri iyo ma dhihin keliya, wuxuu noo sheegaa xadiidka isaga ah habka bukhaari uu kusoo gaaray. marka xadiidka maaragtay xadiid walba waa inuu lahaadaa sanad. sanad waxaa la yihahdaa xadiidka maaragtay waxa uu ku taagan yahay. sanadkan maaragtay hadduu xoog leeyahay xadiidkan wuxuu noqonaya xadiid xoog leh oo maaragtay sax ah oo nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wassalaam. marka ragga xadiiska soo wariyey oo silsilada ah oo nin walba ninka kale xadiiska maarata uu ka qaatay waa dad maaragtay waa inay noqdaan dad hiqaad ah oo lagu kalsoon yahay. haddii kale wuxuu noqonaya xadiidkan maarata haddii uu ku jiro qof daciif ah amba maaragtay qof maaragtay aan maaragtay been lagu tuhmay ama waxyaabahaas amba maarata nin kale aan xadiiska aan ka maqlin wuxuu noqonaya xadiis daciif ah. marka xadiidka maaragtay wuxuu ku bilowday alimaam albukhaari sanadka xadiidka. markaan fiirino sanadka waxaan arkaynaa dad wada toosan oo hiqaad ah oo aimo ah. marka maaragtay annaga maaragtay min baab alfaa'ida ayaan uga faa'idaysanaynaa raggaa iyaga ah tarjamadooda siiradooda inaan wax ka ogaano. wa ilaa waxa waye rag maaragtay culamada o dhan ay isku waafaqeen maaragtay sida axaadiista bukhaari la isku waafaqay inuu yahay maaragtay axaadiis wada saxiix ah. ragga bukhaari maaragtay sanadka u yeelanima waxay yidhahdaan jaawazu lqantara, baaritaan uma baahna maxaa yeele waa dad lasoo baaray oo lasoo ogaaday. marka annaga markaan ogaanayna waxay tahay min baab tabaruk bisiiratihim in aan siiradooda aan ogaano oo maarata axwaashooda aan ogaano oo hadhoodii maarata kitaab kale markaan ku aragnay inaan ogaanayno haulaai min rijaal albukhaari. marka ragga intaan u tarjumin xadiidkan maarata asaga oo imaam bukhaari uu noo soo gudbiyey waxaan arkaynaa alimaam albukhaari 6 meel oo kitaabkiisa ka mid ayuu ku wariyey xadiiskan. 6 jeer ayuu soo celceliyey xadiidkan asaga ah. meeshaan ayuu ku sheegay kitaabu alcidqi ayuu ku sheegay, kitaab manaaqib alansaar ayuu ku sheegay, kitaabu nikaax ayuu ku sheegay, kitaabu alaymaan wanuduur ayuu ku sheegay, kitaabu alxiyal ayuu ku sheegay. marka intaasoo jeer uu soo celcelinayo waxay tahay baab walbo maaragtay xadiidkan waxa laga faa'iidsanayo ayuu maaragtay u tilmaamaya. kitaabu nikaax oo kale wuxuu yidhi baab man haajara aw camila khayra litazawuji imra'atin falahu ma nawaa.
alimaam muslim ayaa xadiidkan soo wariyey, wuxuu ku soo wariyey kitaab alimaara. kitaabka xadiiska waxaa kaloo soo wariyey alimaam abu dawuud, wuxuu ku soo wariyey kitaab الطalaaq. alimaam الnasaa-i ayaa xadiidkan soo wariyey, isagana kitaab الطahaara ayuu ku wariyey. alimaam الtirmidi ayaa soo wariyey xadiiskan, wuxuu ku soo wariyey kitaab fadaa'il الjihaad baabu ma jaءa fi man yuqaatilu riya'an. alimaam ibnu maaja ayaa soo wariyey xadiidkan, wuxuu ku soo wariyey kitaab الzuhd baab الniya. marka kutub al-aima sit oo dhan ayaa xadiidkan soo wariyey. waa xadiid صaxiix ah oo muttafaq calayh ah. marka xadiidkan isaga ah markaan aragno waxaan garanaya maarata haddaan ku celino matnigiisa, wuxuu leeyahy nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu biالniyaat wa inama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ilى dunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha fahijratuhu ilى ma haajara ilayh. xadiidka sida mashhuurka waxay tahay inama alacmaalu biالniyaat wa inama likuli imri'in ma nawaa faman kanat hijratuhu ilى اllahi warasuulihi fahijratuhu ilى اllahi warasuulih ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكن waxaa arkayna الإمام البخاري فقرada koowaad oo maaratay ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله inuusan meeshan ku sheegin. culamadu waxay yiraahdaan wuxuusan u sheegin waxay tahay naftiisa ayuu maarat marka hore way banaan tahay qofka inuu axaadiista uu kala googooyo, yani qayb inuu sheego, yani sanadkeeda inuu qayb ku sheego, qaybta kale maaratay munaasabo kale inuu ku sheego siduu Bukhari uu sameeyo kale. marka halkan laakiin wuxuu ku sheegay waxay tahay marka uu caddeeyey qofka laga maarmaan inay tahay acmaashiisa oo dhan inay ku dhisan tahay niyad wanaagsan si uu maarata abaalgud u helo. marka wuxuu tilmaamay maaratay qofkii niyadiisa ay hallawdo maaratay oo shay taafiha oo qiimo aan lahayn uu ku tacalluqo wax fiican markuu sameyn hijro uu maaratay loo baahnay inuu ilaahay dartiis u hijroodo. qofka hadduu u hijroodo maaratay adduunya darteed, tijaaro darteed ama naag darteed inuu soo guursado, marka ninka isaga ah ajirkii ayaa ka khasaaraya, wuxuu helaa maarata wixii adduunyada oo maarata uu u niyeysta ayuu helaa. marka imaam Bukhari naftiisa asagoo maaratay la dagaalamayo uu rabo maaratay in uusan muujinin inuu asaga mukhlis yahay, uu fiican yahay, oo maaratay qaybtan oo maaratay nagu baraarujina uu leeyahay iska ilaaliya waxyaabahan maaratay acmaashiina saalixada ah, yani qasadkeeda saxa oo maaratay meel fiican maaratay ku dhista. marka hadda waxaan bilaabaynaa sanadka maarata inaan wax ka sheegno. wuxuu yihi alimaam البخاري xadaثana الحumaydiyu huwa abu bakr cabdullahi bn الزubayr, waa sheekha Bukhari. magaciisa waxaa la yihahdaa cabdullahi bn الزubayr bin ciisa, waxaa loo nasabiyey xumayd bin usama. waa nin maaratay galo nasabkiisa umulmu'miniina khadiija zawji الnabiy salى الlahu عalيه wasalam oo ku kulmo iyada iyo asaga waxay ku kulmaan asad bin cabdilcuza. waa nin asadi ah oo xumaydi ah. nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo isagana waxay nasabkiisa waxay ku galaan maaratay waxay isku wadaagsan fi qusay. alimaam alxumaydi waa nin qurashi ah oo maaratay xaafid ah oo imaam weyn ah oo muxadith weyn ah oo axaadiid badan maaratay aruursaday oo maaratay ka bartay axaadiidta shaykhu ahli maka oo ah alimaam sufyaan ibn cuyayna. marka alimaam alxumaydi faqiih keliya wuxuu ahaa maaratay muxadith keliya ma ahayn, wuxuu ahaa nin faqiih ah. alimaam shaafici ayuu fiqi ka bartay, masr ayuu u raacay ilaa uu shaafici uu masr uu ku dhinto, kadib ayuu maka kusoo laabtay. marka waa nin maaratay cilmi kulansaday, wuxuuna ahaa maaratay yani nin alimaam albukhaari maaratay axaadiis oo ka qaato oo qurashi ah ninka ugu faqiihsan ayuu ahaa. afqahu qurashiyin akhada canhu albukhaari. marka wuxuu u doortay waxay tahay xadiidkan maadaama waxyiga uu ku bilowday nabiga calayhi الsalatu wasalaam waxyiga lagu soo dejiyey wuxuu ahaa maka lagu soo dejiyey. marka wuxuu noo keenay nin imaam ah oo ahlu maka ah oo qurashi ah oo maaratay xadiidka uu soo wariyey ayuu ku bilowday munaasabadaas ayuu u doortay. baynama waxaa arkaynaa maarata xadiidka maarata dhowr jeer markuu soo noqdo dad badan ayuu Bukhaari uu ka qaatay xadiiska, laakiin wuxuu bilaabashada kitaabkiisa oo ninkan uu u doortay waxay tahay maadaama uu yahay nin qurashi ah oo ahlu maka ah, waxyigan oo ku bilowday maka oo asagana oo ka sheekeynaya kayfa kaana bad'ul waxyi, marka saas ayuu u doortay.
xadiidka ku xiga waxaan arkaynaa maaragtay wuxuu soo dhexgeliyay alimaam malik, maxaa yeele wuxuu ahaa sheikhu ahlilmadiina. waxyiga nebiga aley maka markuu kusoo degay haddana madiina ayuu kusoo degay sidaas ayaan arkaynaa marka hada alimaam oo alimaam alxumaydi waxaa maaratay axaadiis badan wuxuu ka qaatay alimaam sufyaan athawri. waa kana qaala wuxuu yidhi alimaam alxumaydi xadahanaa, xadiidkan waxaa noo sheegay sufyaan. sufyaankan waa sufyaan, laba sufyaan ayaa jirta oo laba imaam ah, sufyaan athawri iyo sufyaan ibn cuyayna. sufyaan athawri wuxuu ahaa nin kuufi ah, magaalada kuufa maarata cilmiga maaratay halkaa maaratay joogay. alimaam sufyaan ibn cuyaynan wuxuu ahaa nin asaga asalkiisa kuufi ah, laakiin maka soo degay oo maarata ahlu maka culamada wax ka qaatay. kuufu ku dhashay laakiin maka ayuu soo degay, marka maaratay culamadii taabiciinta maka joogeen ayuu culimo badan ka qaatay. waxaa la dhihi jiray sufyaan ibn cuyayna ibn abi cimraan alhilaali abu moxamed almaki. imaam malik iyo asaga maaratay waxay ku wadaagaan culamaa ulxijaaz cilmigooda ayay maaratay culamo badan ayay ka qaateen ay ku wadaagaan. imaam malik markuu dhintay kadib sufyaan ibn cuyayna wuxuu sii noolaa 20 sano imaam bukhaari kadib. marka dad badan oo gadaal ka yimid oo imaam malik aan haleelin ayay sufyaan ibn cuyayna haleelay oo wax ka qaatay sida alimaam alxumaydi oo kale. sufyaan ibn cuyayna wuxuu ahaa nin 70 taabici wax ka faa'iidaystay, marka waa nin imaam jaliil ah. alimaam shaafici wuxuu yidhi lowlaa sufyaan ibn cuyayna wa malik ladahaba alcilmu min alxijaaz. labada imaam ayaa maaratay cilmiga u reebay ahlulxijaaz. haddiiusan labada ahaan lahayn cilmiga waa ka tegi laha xijaaz, maxaa yeele culamo badana waxay aadeen kuufa iyo basra iyo meelaha ayay aadeen, laakiin labadan imaam ayaa cilmiga u reebay. marka alimaam sufyaan ibn cuyayna xadiiska wuxuu nooga warinaya, wuxuu yidhi qaala xadahanaa yaxya bn saciid alansaari. yaxya bn saciid alansaari wuxuu ahaa nin sigaari taabiciina, taabiciinta 3 martaba loo yeelaa. martabada koowaad waa kibaar الtaabiciin, waa dadka maaratay haleelay maaratay alkhulafaa الraashidiin iyo 10 mubashiriin biاljanna. martabada labaad awsaat الtaabiciin, taabiciinta dhexdhexaadka ah oo mucdam الصaxaaba wax ka qaatay. martabada saddexaad waa sigaar الtaabiciin, dadka haleelay saxaabi 1 iyo 2 iyo meelahaas haleelay. yaxya bn saciid alansaari wuxuu ahaa caalim almadiina fi zamanihi. madiina waxaa joogay dad la dhihi jiray alfuqahaa 7 oo 7 oo taabiciin ah oo maaratay cilmi iyo fiqi iyo maaratay taqwo iyo warac isku darsaday oo madiina maaratay culamadeed ahaa. 7daas ayuu wax ka qaatay. marka ninka alimaam yaxya bn saciid laba ayaa jirto. yaxya bn saciid alqataan oo shuyuukhda imaam axmed ibn xambal ah, iyo yaxya bn saciid alansaari oo mutaqadim ah oo taabici ah. marka labadaba waxay ahayn laba oo aada u hiqa ah. wuxuu dhashay maarata yaxya bn saciid alansaari zamanka cabdullahi bn zubayr oo maaratay maka uu joogay oo madaxda u ka ahaa. marka wuxuu haleelay anas bin malik, abi umama bn sahl iyo taabiciintii waaweyneed oo aan soo sheegnay oo fuqahaa 7 ay ka mid ahaayeen saciid bn musayib, cali bn xusein zayn alcaabidiin, alqasim bn moxamed iyo wixii lamid ah. waxaa axaadiista isaga ka qaatay imaam malik iyo shucba iyo maaratay a'imadii oo dhan. wuxuu ku dhintay maaratay magaalada haashimiya la yihahdo oo kuufo u dhow, isaga oo jiro 70 iyo dhowr sano. sanadka markuu ahaa 43. marka ninka imaamka ah oo yaxya bn saciid alansaari xadiiska wuxuu ka qaatay asaga. qaala wuxuu yidhi akhbaranii moxamed bin ibrahim الtaymi. moxamed bin ibrahim bin alxaarith bin khalid الtaymi wuxuu ahaa min awsaat الtaabiciin. wuxuu ahaa nin qurashi isagana oo taymi ah. jadigiisa wuxuu ahaa alxaarith bin khalid min almuhaajiriin alawaliin. wuxuu arkay sacd bin abi waqaas
marka saan soo sheegnay awsaati taabiciin waxay ahayd dad maarata waa laga yaabaa inuu 10 mubashiriin u arko laakiin wax kama qaadan, wuu arkay keliya. laakiin saxaabadii badankeeda ayuu yaryaraa ayuu wax ka qaatay, sida abi saciidin alkhudri, jaabir bin cabdillah, anas bin malik, caaisha, calqama bin abi waqaas iyo wixii la mid ah. wuxuu dhintay ninka imaamka ah sanadka markuu ahaa 120. nin axaadiis badan soo wariyay ayuu ahaa. ninka isaga wuxuu xadiiska uu ka wariyey wuxuu yidhi annahu samica calqama bin waqaas allaythi. calqama bin waqaas allaythi almadani wuxuu ahaa nin imaam ah oo taabici ah oo maaragtay kibaari taabiciin ahaa. culamada qaarkood waxay yidhahdeen bal saxaabi ayuu ahaa. wuxuu ka wariyay cumar bin khataab, ibnu cumar iyo mucaawiya, caaisha maaragtay iyo wixii la mid ah. culamo badan waxay yidhahdaan ninkan taabici ayuu ahaa, laakiin maaragtay imaam muslim kitaab ayuu qoray oo maaragtay wuxuu yidhi ninka waxaa la dhalay zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam, wulida fi xayaati nabiy calayhi salaatu wassalaam. marka maaragtay xadiidka sida laakiin loo badanya waxay tahay inuu ahaa nin taabici. marka sanadkan asaga waxaa ku jiro 3 taabici ayaa ku jiro sidaan soo sheegnay. yaxya bn saciid alansaari oo siqaar taabiciin ah, maxamed bin ibrahim ataymi oo awsaat taabiciin ah, calqama bin waqaas allaythi oo kibaar taabiciin ah. marka 3 taabici ayaa xadiiska maaragtay soo warisay. ninka taabiciga weynaa wuxuu xadiiska uga qaatay oo soo wariyey, wuxuu ka wariyey maaragtay cumar bin alkhataab radia allahu canhu. marka sanadkan sidaan ku sheegnay waxaa ku jiro 3 min ataabiciin fii nasaqin waaxid. lakin haddii la yidhaha calqamo saxaabi u ahaa waxay noqonaysaa 2 taabici iyo 2 saxaabi. marka asagana wuxuu ka maqlay xadiidkan, wuxuu yihi samictu cumar bn alkhataab radia allahu canhu cala almimbar. asagoo mimbarka ku taagan ayuu xadiidkan uu noo sheegay. cumar bn khataab waa amiir almu'miniin abu xafs oo mashhuur ah oo aan naqaano. wulida waxaa la dhalay bacda caami ilfiil ب13 sana. wuxuuna ahaa jaahiligiisa nin ashraaf quraysh ka mid ah oo maaragtay quraysh ay u dirsato maaragtay arrimaha u hogaamiyo. markii dagaal ay galayeen waxyaabahaas safiir ayuu quraysh u ahaa. wuxuu islaamay cumar bn khataab bacda 40 rajula wa 11 imra'a. markii ay soo islaameen 40 rag iyo 11 naag oo saxaabiyiin ah. markaa kadib ayuu asaga soo islaamay. marka islaamkiisa wuxuu ahaa cizan dahara bihi alislaam. nabiga ayaa calayhi salaatu wassalaam maaragtay yidhi allahuma aciza alislaama biaxad alcumarayn. marka cumar bn khataab waa nin mashhuur ah, siiradiis kuma sii dheeraanayno. wuxuu ahaa nin maaragtay mashaahida o dhan nabiga calayhi salam la xaadiray, beder iyo mashaahida o dhan khilaafadana tawaliyey bacda abi bakr radi allahu canhu. cabdullah bn mascuud wuxuu leeyahy maa zilna acizatan mundu aslam cumar. waxaa la dilay oo shahiidnimo uu ku dhintay isagoo jiro 63 sano radia allahu canhu. wa dufina maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fi beyti caaisha. marka sanadkan markaan ka baxnay oo aan soo sheegnay maaragtay aimada isaga ah xadiiska soo wariyey. xadiiska wuxuu leeyahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inama alacmaalu biاnniyaat. wa inama likuli imri'in ma nawa. marka xadiidkan waa xadiid weyn oo aimada maaragtay aada iyo aad xadiiskan u sheego, xataa ay yihaahdaan maaragtay waa xadiidkan waa thuluth addiin, thuluth alislaam. imaam maxamed bin xambal wuxuu yihi maaragtay yani iyo aimo badan saas ayay sheegeen. marka nabiga alayh slam wuxuu leeyay inama alacmaalu biاnniyaat. acmaashi waa jamc, niyaadkiina waa jamc. muqaabalat aljamci biاljamci, yani camal walba wuxuu u baahan yahay niye ayuu ku xiran yahay. laakiin riwaayaadka badana waxay soo wariyaan riwaayada imaam muslim iyo bukhaari iyo riwaayado badan wuxuu kusoo wariyey inama alacmaalu biاnniya bilifraad. maxaa yeelay acmaash way fara badan tahay, laakiin niyadan waa mid keliyama oo ah ilaahay dartiis subxaana wa tacaala in camalka loo sameeyo.
marka maadaama niyada ay u noqonayso ikhlaaska oo ilaahay subxaana watacaala oo waaxid uu yahay oo asaga dartiisa camalka loo wado, acmaasha oo dhan maaragtay ay fara badan tahay, sidaas ayaa maaragtay mufrad looga dhigay. marka xadiidka inama alacmaalu binniyaat jaaru majruurka oo binniyaati ah wuxuu u baahan yahay maaragtay mutacalaq. waxay yidhahdeen culamada inama alacmaalu acmaashii tuctabar waxaa maaragtay fiiro ay ku leedahay oo qiimo ay ku leedahay binniyaat, ama ay ku ansaxaydaa binniyaat, amba ay tukamalu binniyaat. marka qasadka wuxuu yahay waxa waaye nin kastoo maarata camalka uu samaynayo waxa uu ilaahay subxaana watacaala uu fiirinaa ninka qasadka uu ka leeyahay camalkiisa. qasadka hadduu yahay qasad fiican, camalkaas wuxuu noqonaa camal ilahay agtiisa qiimo kale. ilahay agtiisa ma fiiriyo acmaasha, ilahay ma fiiriyo. ilahay wuxuu fiiriya quluubta, qasadka uu ka leeyahay camalka insaanka uu samaynayo waxa uu yahay. waxaa laga yaabaa acmaal badan oo qofka inuu samaynayo oo saxiix ah oo fiican oo maaragtay ilaahay loogu dhowaanayo, laakiin maadaama qasadkeeda maaragtay uu halaysan yahay, acmaashaas oo dhan ilaahay subxaana watacaala insaankii kama aqbalayo. bal sida axaadiis ay kusoo aroortay waxay tahay insaankii waa loo ciqaabina acmaashaas, sida imaam muslim uu soo wariyay can abi hurayra radi allahu canhu, yowma alqiyaama markii la gaaro ilaahay subxaana watacaala waxaa lasoo horjoojin doonaa 3 qofood. qof ilaahay subxaana watacaala maal siiyey, maalkaa bixiyey fii wujuuhi lkhayr ku bixiyey. markii la weydiiyo la yidhaha maxaa maalkii lagu siiyey, maxaa ku qabatay, wuxuu yidhaha yaa rabbi anfaqtuhu, waxaan ku bixiyey wajiya badan aan ku bixiyey. markaasa li kadabta, maalkaa waxa u bixisay aniga dartay uma bixin, laakin waxa u bixisay in lagu yidhaahdo nin sakhi ayuu ahaama. waa nin maalkiisa ku bixin jiray wujuuh alkhayr, wamaca dalika waxa waye camalkaas uu sameeyey yani ilaahay subxaana watacaala wuu u ciqaaba. waxaa laleeyahy khuduuhu ila annaar. nin ilaahay subxaana watacaala cilmigii baray oo raba dadki inuu cilmiga gaarsiiyo, qur-aankii dadki baro waxyaabaha uu marka ninkii waxaas ayuu ku dhaqaaqay, laakiin qasadkii ayaa ka xumaa, naarta ayaa la gelina isagana. nin baxay oo gaaladii la jihaaday oo dagaalkii ku dhintay, camal khayr badan ayuu sameeyey, wamaca dalik maadaama niyadii ay ka halaysneed oo u baxay waxay ahayd in lagu yidhaahdo maarata geesi u ahaa, fulaan u ahaa, dadki inay ku xusaan darteed ilahay naarta ayuu qofka gelinama. marka qofkii insaanka waxaa loo baahan yahay in uu maaragtay camalkan uu samaynayo camalka inuusan ka kadsoomin. waxaa loo baahan yahay niyadiis qofka inuu fiiriyo. inama alacmaalu binniyaat, nabiga alayhi salam saas uu leeyahy. inama kelimada inama waxay faa'iideynaysaa alxasr, koobitaan. camal ma jiro ilaa wuxuu raacsan yahay niyaddi. niyaddaas haddii i toosto camalkii wuu toosa, niyadda haddii halaysan tahay camalka o dhan waa ka kacma. marka waa arrin aada u weyn. culamada sidaas darteed waxay yidhahdaan waxaa laga yaaba qofka niyaddiisa in uu ilaahay subxaana watacaala abaalgud inuu ku siiyo, niyaddiisa hadday fiican tahay, xataa walow camal uyuusan samaynin. sida axaadiis badan ay kusoo aroortay, ina bilmadiinati aqwaamun, yani madiina waxaa ku sugan dad oo maarata nebiga alay sl hadalkaa uu sheegay dadkii saxaabadii markii ghaswata tabuk ay aadeen. madiina waxaa ugu soo tagteen o dad maarata meel alla meeshaad tagtaan waxa lo camalkaas samaysiin, iyagana ajirkaas way leeyihiin. maxaa yeelay maarata xabasahum alcudur, waa dad marad iyo maaratay celiyey, laakiin waxay tamanin jireen maarata inay waxaas sameeyaan oo kale. marka insaanka markuu niyadiisa ay fiican tahay, iimaankiisa uu xoog leeyahay, camal khayr badan ayuu jecel yahay inuu sameeyo, laakiin wuxuu leeya ya rabbi maaragtay waxyaabahaas ayaa iga reebay camalkaama. jihaad ayuu jecel yahay inuu galo, laakiin jihaadkii maarata ma awoodo inuu baxo. maxaa yani wuxuu rabaa inuu maarata wuxuu leeya ya rabbi haddii maal aan haysan lahaa waxaas ayaan ku bixin lahaa. marka ilaahay subxaana watacaala ninka asaga oo niyadiisa uu saafi ay tahay, ilaahay camal maaragtay camalkaa asagoo sameeyo kale ayaa maaragtay laga tawaabina. marka niyat lmu'min khayru min camali. marka ninka muslimka waxaa loo baahan yahay qalbigiisa in uu eego. sidaa darteed salafku waxay ahaayeen dad maaragtay yani ilaahay subxaana watacaala la tacaamulayo, sidaan ogaan doonama. alimaam sufyaan athawri oo a'imat diin ka mid ah wuxuu yidhi maa caalaytu shay-an ashadda min niyati. diintan iyada ku camalfalkeeda maaragtay waa ii fududeed, laakiin wax maarata aan tadbiiqiyo, aan hanto oo aan maaragtay aan ka adkaado, waxay igu adkaatay niyaddeeda. maxaa yeele fa inaha tanqalibu calaya, mar walba waa isbedelayda niyadda. soo celi maaragtay in aa maaragtay niyadda qalbiga aa ku celisid. camal ayaa samaynayda gudagelaysaa, niyaddeeda way fiican tahay, bacdi shuhur waxaa arkeedaa maaragtay camalkii niyaddii inay meel kale ka baxdeen.
kam min qof insaan oo maaragtay laakiin naftiisa iska raacay oo maarata u qaatay khalaas isaga maarata mukhlis inuu yahay camal iska gudanayo hadhowda camalka oo dhan maarata ka kaca inuu noqdo. marka waxaa loo baahanya camalkaaga inaad fiirisid oo aad ilaalisid. nebiga wuxuu leey inama alacmaalu, acmaal ma jirto, haddii jirto waxay ku xiran tahay waxay tahay binniyaat. niyadaas hadday toosto camalkaaga wuu toosaana. marka arrintaa maarata waxay ku xiran tahay waxay tahay yani ikhlaas in laga helo ilaahay subxaana watacaala dartiis ina camalkaaga u samaysid. wa inamaa likulli imri'in maa nawaa, qof walba wuxuu leeyahay wuxuu camalkaas uu samaynayo waxa uu sameeyey ayuu leeyahay. marka jumlada dambe culamada qaarkood waxay yidhahan ta'kiid waxay u tahay jumladii hore, laakiin sida loo badan yahay waxay tahay jumladan dambe waxay faa'iideynaysaa camal walbo maaragtay camaasha inay mutafaawit ay tahay. marka qofka maarata waxaa loo baahan yahay marka maarata camal kasta uu samaynayo niyad inuu la yimaado. tacyiinu alacmaal, tacyiinu niya, niyada inuu ku cayino uu yihahdo ilaahay maarata camalkan waxaana ula jeedaama. haddiise niyadda ay qalbigaaga ay ka maqan tahay camalkaaga asagana ma ansaxayo. wa inamaa likulli imri'in, qof walba waxa uu leeyahay oo u xasilayo acmaasha uu samaynayo waxaa ugu xasilayo maana waa wax uu niyeystay. marka waxaan arkaynaa maaragtay hadalka soo maarata si aan hadhowda maarata tafaasiil badan aan gelin doono. culamada maaragtay arrinta iyada qaacido weyn ayay maaragtay ay ka qaateen, oo siiba culamada fuqahada waxay yidhahdaan maarata qawaacidda diinta lagu dhisay oo dhan oo fiqiga laga soo qaatay oo dhan maaragtay waxaa ka mid ah maaragtay alumuuru bimaqaasidiha. shanta qaacido waaweyn oo fiqiga o dhan lagu dhisay ayay ka mid tahay. waxaana laga qaatay xadiidkan ayaa laga qaatay wa inamaa likulli imri'in maa nawaa. faman kanat hijratuhu ila dunya yusiibuha wa imra'atin yankixuha fahijratuhu ila ma haajara ilayh. hijrada waxaa la yihahdaa الترك والانتقال من مكان إلى مكان. sharciga laakiin wuxuu u yaqaanaa tarku maa naha allahu canhu. qofka ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka reebay inuu ka fogaado oo ka tago oo u gudbo waxa ilaahay uu amray. almuhaajiru man haajara maa naha allahu canhu. laakiin sida istilaaxa waxay tahay qofka inuu ka tago min daari اlkufri ila daar aliimaan, daar alislaam. sida waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la amray dadkii muslimiinta oo dhan waqtigaa joogay inay maka ka soo haajiraan. maxaa yeele waxay daaru kufrin ayay ahayd oo maarata dadkii muslimiinta lagu dhibaayo inay usoo hijroodaan daaru lmadiina oo maarata daaru lislaam ahayd, min daari lkufri ila daari aliimaan. marka hijrada asaga ah wuxuu ahaa shay waajib ah oo camal khayri ah oo ilaahay subxaana watacaala looga dhowaanayo. markaa waxaa jirtay marka dad maarata bini aadamka camalkaas isaga ah yani niyadu iskooda mid ma ahan. qof inuu usoo bixi karo maarata hadaf dunyawi ah, hadaf maaratay nafsaani ah, xad maaratay tijaaro, maaratay inuu maaratay makaasib mucayan inuu maaratay qofka uu soo haleelo. laakiin dadna waxay usoo baxayan waxay tahay ilaahay subxaana watacaala dartiisa. maalkiisa iyo maaratay danihiisa wixiisa o dhan ayuu faraha ka qaadaa, wuxuu u gudbaa waxay tahay ilaahay dartiisa. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. marka saxaabada badan saas ayay usoo baxeen. marka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saxaabadiis ayuu ugu diga arrinta iyada. wuxuu leeyahay maaratay arrinta camalka maarata hijrada ah waa camal weyn, iska ilaaliya maaratay arrintaa ha ku dhicina. faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulih. waman kanat hijratuhu ila dunya yusiibuha, addunya uu soo haleelaha hadduu u baxo, oo imra'atin yankixuha fahijratuhu ila ma haajara ilayh. marka xadiid ayaa jiro oo maarata cabdullahi bn mascuud laga wariyo oo tilmaamayo yani in uu jiro nin la yihahdo muhaajir umu qays. cabdullahi bn mascuud wuxuu yihi man haajara yabtagii shayئa fainamaa lahu dalika. qofkii u hijroodo asagoo arrin dan leh wuxuu leeyahay maaratay dantaas ayuu leeyahay. siduu ilahi subxaana watacaala ilahay ugu leeyahay waman ka yani ilaahay maaratay. marka wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud haajara rajulu liyataزawaja imra'atan yuqaalu laha umu qays fakana yuqaalu lahu muhaajir umu qays. nin ayaa wuxuu u hijrooday inuu islaan uu soo guursado. naagta waxa la dhihi jira umu qays.
marka ninkaa waxaa dadka maaragtay way ogaadeen, marka waxaa lagu magacaabi jira muhaajir umu qays. laakiin alimaam ibn xajar ibn casqalaani oo aimada xadiidka ah oo kitaabka bukhaari sharxay wuxuu leeyahay ma jirto xadiiskaas arrinta sheekada iyada ah riwaayad tilmaamayso hadalkan nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yiri in uu maaragtay sababta uu hadalka u ku yiri waxay tahay ninkaa dartiis ma ahayn. ninkaa arrintiis way jirtaa muhaajir umu qays la yihahdo, laakiin xadiidkan asaga ah sababtaa kuma imaanin. dad ayaa yidhahda sababtaas ayuu xadiis ku yimid, laakiin maya maaragtay riwaayo ma jirto oo sanad saxiixa lagu wariyey oo arrintaa iyada tilmaamayso in xadiidkan iyo xadiidkan cilaaqi ay isku leeyihiin. laakiin waa arrin jirtay oo markaa maaragtay oo arrintaa dhacday. marka nabiga alayh slam wuxuu leeyay inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa. qof walba wuxuu leeyahay waxa uu niyeystay calaa qadri niyatihi ayuu leeyahay. marka xadiidka isaga ah waxaa laga qaadanaa dhowr arrimood. waxaa ka mid ah laa yajuuzu aliqdaamu cala alcamal qabla macrifati alxukm. maadaama maarata camalkaaga uusan ansixaynin oo ilahay agtiisa qiimo uusan ka lahayn aan laga aqbalayn ilaa inaa niyad la timaado mahane. marka niyad maxaa la timaada haddaadan garanayn maarata camalka asaga xukumkiisa waajib miya sunno miya yani wax maaratay waxa uu yahay haddaadan garanaynin camalka haddaa iska samaysid camalkaa qiimo mala asagana ma. marka wuxuu leey laa yajuuzu aliqdaam cala alcamal qabla macrifati alxukm. limaada? liana fiihi ana alcamal yakunu muntafiyan. camalka oo dhan waa buraabo idaa khala can niya. niyadna lama imaan karta ilaa inaa ogaatid mahane camalkaas xukumkiisa waxa uu yahay. markaa waxay keenaysaa in uu diinta ilahay inaad baratid kala ogaatid waxaan maaragtay waajib miya sunno miya waxaa maarata. marka hadda waxaan gudagalaynaa maaragtay in aan caddayno culammada maaragtay fuqahada ah xadiidkan isaga ah waxa ay ka qaateen. marka intaan gudagelin waxaan rabnaa maarata inaan tilmaamno maaragtay xadiidkan waxaa noo soo wariyey sidaan soo sheegnay cumar bn khadaab radia allahu canhu, hada asaxaabi aljaliil amiir almu'miniin. marka alimaam albukhaari cumar bn khadaab axaadiid badan ayuu ka wariyey. waxay gaarayeen ay yirahdaan culamada 60 xadiid ayuu imaam bukhaari uu ka maaragtay axaadiid oo cumar bn khadaab uu soo wariyey ayaa ku jirto saxiix albukhaari. marka hadda waxaan gudagalaynaa maaragtay culamaa oo alfiqh yani oo kutubo qoray oo maarata qawaacid alfiqh maaragtay iyagoo caddaynayo yani xadiidkan waxa ay ka qaateen. dhowr maaragtay nuqdo ayay maaragtay uxadideen xadiidkan waxa laga qaadanayo. marka hore waxay ka hadleen maaragtay yani limaada shuricat الniya, inama alacmaalu biالniyaati maxaa loo jideeyey. maxaa yeele acmaasha markaan fiirino acmaasha waa laba qeyb ayay u qeybsamaan cibaadaad iyo caadaad. qofka wax la amray inuu ilaahay ugu dhawaado oo cibaado ahaan uu u sameeyo iyo wax acmaal qofka uu samaynayo oo maaragtay caado ahaan uu u samaynayo. marka labadaa in la kala saaro darteed ayaa niyada loo jideeyey. waxaan arkaynaa qofka inuu maaragtay musqush inuu iska galo iska soo qubaysto. marka qubayska isaga muxuu u qubaystay? inuu isqaboojiyo ma u qubaystay? inuu soo nadiifiyo ma u qubaystay? mise cibaado ayuu gudanayay oo waajib asaga saarnaa oo janaabo ayuu iska zuulinayay. qof ayaa maal bixiyey, maalkaa muxuu u bixiyey? ma sadaqo ayuu u bixiyey? ma maaragtay deen lagu lahaa mayuu u gutay? ma yani zaka ma u gudanayay? qof ayaa xoolo qalay, ma ciddiisa inuu wax siiyo ma u qalay mise inuu sadaqaysto u qalay? ma yani udxiyo ma ugu talagalay? waxaas oo dhan waxaa kala saaraya waxay tahay niyadi. marka niyada waxaa loo jiidaya waxay tahay tamyiizu alcibaadaat min alcaadaat. tan kale waxaan arkaynaa maaragtay cibaadaadka naftigooda iyaga ayaa maraatib kale leh. waajib ayaa jiro, sunno ayaa jirto, maaragtay nadar ayaa jiro. marka qofkii waxa uu samaynayo maxay tahay? soom ayuu qofkii soomay, soom waajib miya, soom nadar miya, soom farad miya? waxaa kala saaraya waxay tahay niyadaas inuu niyeysto qofka maarata soomka inuu soomay waxa aynu qastay. salaad ayuu tukaday qofkii,
salaad waajib miya, sunno miya, raatiba miya, waxa ay tahay. marka niyadu waxaa loo jeeday waxay tahay labada arrin in ay kala saarto, tamyiizu alcibaadaat can alcaadaat iyo tamyiiz rutab alcibaadaat bacdiha can bacd. arrinta saddexaad waxay tahay maaragtay tamyiiz wax ilaahay subxaana watacaala ikhlaas maaragtay dartiis ah iyo wax maaragtay keyrka ilaahay subxaana watacaala loo sameeyey darteed, inuu qofka maaragtay uu kala saaro. marka tashriiga ah maaragtay acmaashii in lais dhex geliyo dhowr maaragtay culamada maaragtay way kala saarsaareen, taana inaan ka faa'idaysano way fiican tahay. qofka waxaan arkaynaa maaragtay in uu sameeyo cibaado, inuu sameeyo cibaadadaas, cibaado farad ah iyo cibaado sunno ah ayuu isdhex geliyay oo labadaba isku niyeystay, an yanwiya maca alcibaadati almafruuda cibaadatan ukhraa manduuba. marka labada ma ansaxaysaa iyo keebaa ansaxaya. masaa'il badan ayay leedahay. marmarka qaarkiis culamadu waxay yidhahdeen labadaba way isla maaragtay way buraysaa, marna labadaba way ansaxaydaa. mar faradkii ayaa ansaxayo, sunnadii ma ansaxayso, mar sunnadii ay ansaxayso, faradkii ma ansaxayo. waxaas oo dhan waa istinbaadaad culamada maaragtay fuqahada ah ay ka qaateen maaragtay nusuusta kale iyo waxyaabahaas oo dhan maarata. marka mithaal haddaan uu ka sheegno, qof ayaa maaragtay salaad xirtay, wuxuu u niyeystay salaada inuu waajibka inuu guto iyo taxiyat almasjid ayuu isdhex geliyey. masaajidka ayuu soo galay, salaaddii lagu jiro, salaaddii ayuu niyeystay, taxiyat almasjidna uu u niyeystay. labadaba way ansaxaysaa markaana. qof ayaa qubaystay, qubayskaa wuxuu u niyeystay in uu janaabadii iska saaro, iyo maalin jumce iyadoo ah inuu maarata qubayska jumcadana uu soo dhexgeliyo. taa ma la isdhexgelin karaa mise maya? culamada qaarkood waxay qabaan qubayska jumcada waa waajib, sida imaam bukhaari oo kale maaragtay wuxuu qabaa maalinta jumcada in la qubaysto waa waajib. marka haddii la yidhaho qubayska jumcada waa waajib, laisma dhexgelin karo. lakin haddii la yidhaho qubayska jumcada waa sunno oo la isdhexgeliyo, labadaba way ansaxeeda. marka hal qofka inuu hal jeer qubaysto, markaa maaragtay janaabadiina way ka dhacday, qubayska jumcadana waa u ansaxay hadduu isku niyeysto. lakin haddii la yidhaho qubayska jumcada waajib waaye, waxay noqonaydaa ma ansaxayso, laba qubays waa inuu qubaystaa qofka. marka taa waxay ka mid tahay suwarta maaragtay yani qofka maaragtay isdhexgelinta maray banaan tahay oo labadaba ansaxayso, sida salaada waajibka iyo taxiyat almasjidka ah. qof ayaa xajiyey, xaj waajib ayuu niyeystay iyo xaj sunno ah. waxaa la leeyahay maya, xajka waajib keliya hadda kaa dhacay, kii sunnada ma soo dhexgeli kartid, meeshaan ma soo dhexgelin kartid, sida salaadoo kale maaha. waa mid ayaa ansaxay, faradkii ayaa ansaxay, sunnadii ma ansixin. midka afaraad, noocan afaraad oo ah labadu waa isla burayin markii la yihahdo. qof ayaa yimid, imaamku rukuucsan, wuxuu yidhi allahu akbar, wuxuu u niyeystay takbiirat alixraam iyo takbiirat alrukuuc. salaadiis ma ansixin qofka. waxaa loo baahan yahay takbiirat alixraam waa waajib, yani inuu niyeysto kadib takbiiro kale inuu la yimaado.